marka hore ilaahay wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay yidhi oo dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyahy وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي وحده كوا قداشد وحمري قلو قلدا محاوى على مدى مركو هرى كتابك ويد حلين dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynaan dhiman cidna meel kamaynaan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool unbaynu islaamnimada dhaxalay waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka ah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo وقال حجعله بدني وحسي فضود صوغلا حتى dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sayr-sayriska dhalinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayugfaru lana wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dhawar wasideen waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi طبعا ilaahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahay mar kale waa iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa ghafuur rahiim ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxay islaamnimo waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekeynayaan ilaahay waa ghafuur rahiim ilaahay baa inoo dhaafi laakiin ma ha ghafuur rahiim nima intuu rumeeyay wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wa yaatihim aradun mithlu ya'khuduhu ba ilaahay tii kullabaado lamida haday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan ba ilaahay ilaahay markaa wuxuu war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay xaq ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan قال ونوعه قال كلنا إلهي وحولي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون كوا كتابك قب سنة يبا إلهي مسك بتضعيفه اللغة العربية يعني وحويان مركز قبطه وقف آن رمي وحنين وكبح صده هلا يا دمر كل قبطه كسيبته وقف عادي لكن كان واقف ربا محي inuu xajisto kuwa xajisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maaya ilaahay yidhi idan waa laba miduun inaynu dhahno insha allah sayughfaru lana waa carruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayughfaru lana ku dhisno ku binayno على هذا المذهب قادرنا يينا قادرنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حجسنه